السلام عليكم. qiso xanuun badan, qiso kaa ilmaysiin doonta, qiso aad la yaabi doonto. Maalin maalmaha ka mid ah, wiil ayaa dhintay. Markii dhintay wiilku oo la rabay in la aaso, ay isku yimaadeen xabaashiisii ehelkiisa oo la rabay in iilka la dhigo, ayaa waxaa la rabay qof iilka dhiga. Waa la waayay, waa la baadhay. Walaalkii ayaa la helay. Walaalkii ayaa yidhi na dhigaya iilka. Markuu walaalkii soo qaaday meydka uu rabay inuu iilka dhigo, ayaa wejiga ayuu ka furay maradii. Waa naxay, waa u booday, wuu argagaxay. Wuxuu yidhi war walaalkii ma sidan buu ahaa? Dadkii baa yaabay, waxay ku dhaheen maxay dadku ma arkaan, isaga unbaa arka, oo dadku way ka yar fog yihiin. Kadib wuxuu yidhi walaalkaa ceebtiisa qari, inaha u sheegin. Isagoo argagaxsan wuxuu ku arkay walaalkii oo isbedelay, wejigii oo walaalkii oo isbedelay. Waa meyd, wuu isbedelay. Marka hore laguma ogaan sidaan inuu ahaa. Wuu isbedelay markii la geliyay kafanta kadib. Wuu isbedelay, wuxuu ekaaday mithaal yacni kelbiga oo kale. Kelbiga ay wejigii ayuu yeeshay. Ay wejiga ayga waa taqaanaan soo maahan. Wejiga ayga ayuu yeeshay. Wuu yaabay. Kadib wiilkii waa uu geliyay wiilkii walaalkii. Waa uu naxsan yahay, waa yaaban yahay, wuu argagaxsan yahay. Wuxuu isleeyahay war maxaa siya maanta? Waa uu yaaban yahay, oohintii way ka dhamaatay. Markii ay xabaashii ciidii lagu qubay, laskaga soo dareeray, laysii macaslaameynayay, eheladii ka dhintay wiilku is macaslaameynayaan. Waa yaaban yahay isagu. Waa telefoon ku qabsaday. Gabadhii uu qabay ninka dhintay oo ah walaalkii ayaa u wacay. Gabadhi waxay la joogtaa dabcan gabdhii la fadhidaa, yacni ninkeedii baa dhintay. Gabdhii qol ka yar fog la fadhidaayo dee iskala shakaysanayaan, dee xaafadii wala joogaan. Kadib wuxuu ku yidhi waxaan ku sheegayaa ninkaagu muxuu ahaa, muxuu samayn jiray. Waxaan ku sheegayaa arrin kaa yaabin doonta. Waxay tiri ii sheeg maxaa dhacay. Wuxuu yidhi waxaa dhacay ninkaagu markaan ka qaaday kafanta waan yaabay, waxaan ku arkay. Wuu aamusay markuu yidhi waxaan ku arkay. Waxay tiri maxaad ku aragtay? Suu yidhi wuu aamusay. Waxaan ku arkay suuradda kelbiga oo kale isagoo leh, wejigiisii oo kelbi noqday, wejiga ayagoo kale isagoo ah ayaan arkay. kadib way aamustay. waxay tiri maxaan ku dhacay baan ku yidhi, muxuu samayn jiray. kadib waxay tiri ninkaygu wuxuu ahaa mid aan salaada tukan. marka la aadimayo wuxuu ahaa ninkaygu marka la aadimayo salaada intuu kor u qeeliyo dhaha isdhaafiyo adimaado dhaha wan waxaan eegaya naga aamusiya buu dhihi jiray. qofkii aadimaya ayaa wuxuu ku dhihi jiray war waxaan eegaya naga aamusiya, waxaan hadlaya waa eey naga aamusiya. intuu dhaho qeeliyo oo qeyladaas kaga balfiyo adimaada, saas qofku ku sheegi jiray ey wuxuu ahaa mu'adin buu ahaa. qofka mu'adinka markuu dhaho allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar, wuxuu dhihi jiray ayga naga aamusiya. kadib isaga maxaa ilaahay ugu bedelay booska ayga, wejigiisa ayuu ilaahay ay ka dhiga. walciyaadu billaah, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waa qiso dhab ah, waa qiso dhacday, dhaydhayl maaha. qofkii salaadaan tukana war hoy tuko, intaan lagugu tukan war hoy tuko. jaanis baa haysataa maanta, ama weyno ama yarow. haddaadan tukan jirin ood qaangaar tahay hoy tuko, jaanis baa haysataa wallaahi. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.